Halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada wararka aad daawan doontaan waxaa kamid ah Imaaraadka Itoobiya oo markii ugu horeysay si rasmi ah shaaciyeen ay kaga shaqeynayaan wada hadalka dawladda federaalka iyo Somaliland arinta Jubbaland oo la tilmaamay inay tahay qadiyad bad Kenya aysan siyaasadeyn karin dawladda oo ka jawaabtay wararka sheegaya in la fududeeyo baxsashada wasiir janan madaxweyne farmaajo Ameerika Qatar oo ka wada hadlay xaaladda labada dal degmada Dinsoor oo lagu daadiyay waraaqada lagu baadiyo goobayo sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab waxa kale oo daawan doontaan Masar oo xaqiijisay in wadankeeda laga helay kiisaskii ugu horeeyay coronavirus qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan haddii aad xulashada wararka cusub taafadlan subscribe saar ku dhufo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha kuwaad halkan markeenu wararkeena ku baahino inuu ku bilaabnay Imaaraadka Carabta Itoobiya ayaa ka wada shaqeynaya wada hadalka dawladda federaalka iyo Somaliland kulankii madaxweyne farmaajo Muuse Biixi isbuucii hore oo ku yeesheen magaalada Addis Ababa ayaa waxaa si dadban u soo dhaweeyay dawladda Itoobiya iyo Imaaraadka ayagoo danahooda ka dhex arkay inay Soomaaliya iyo Somaliland heshiis gaaraan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo qaban qaabiye kulanka farmaajo Muuse Biixi wuxuu habeenkii Khamiista soo galeysay ka degay magaalada Abu Dhabi ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta si madaxda halkaas ugu la hadlo ajendayaal badan oo ay ku jiraan kulanka madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland balaarinta dekada Berbera ee Imaaraadka Itoobiya qayb ay ka yihiin saami qaybsiga dakhliga laga helo dekadaas iyo dadaalka loogu jiro nabad ka qaaridda geeska qaaradda Afrika Abiy Ahmed waxa kulan qaas ah u la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee dalka Imaaraadka Sheekh Abdullahi bin Zayed waxaana ay ka wada hadleen xiriirka labadooda dal iyo qaabka loo xoojin karo danahooda wadajirka socdaalka Abiy Ahmed oo ku tagay Imaaraadka wakiil labaad ee uu ku tago dalkaas wax ka yar muddo hal sano Itoobiya Imaaraadka Carabta iyo Somaliland waxay dan wadaag ku noqdeen balaarinta dekada Berbera oo hadda dhismeeda la dhameystiro noqon doonta dekada ugu weyn ee gobolka Imaaraadka oo isbahaysiga Itoobiya waxa kale oo ay maalgeliyaan dekada Berbera taasoo Imaaraadku ku taageertay inay galaangal xoogan ku yeeshaan kontaroolka dekadaas ku taala gacanka Carbeed Imaaraadka waxa kale oo uu ku howlan yahay inay saldhig military mid ciidan bad ay ka dhistaan xeebaha magaalada Berbera dhinaca kale shirkadda dekadaha Dubai DP World waxa la sheegay in balaarinta dekada Berbera ay ku bixinayso qarash dhan $442 milyan waxaana la rajeynayaa in deegaan dhaqaale oo xor ah ay ka sameeyaan dekada Berbera si loo dabaalo baahida ganacsiga gobolka dawladda federaalka waxay si cad ugu soo horjeesatay heshiiska Imaaraadka iyo Somaliland ee balaarinta dekada Berbera waxaana ay sheegtay inaysan Somaliland xaq u lahayn inay galaan wax kasta oo heshiis caalami ah si kastaba Taylor Waraadi waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Eritrea galaangal ay ugu jiraan sidii ay u dhaxdhaxaadin lahaayeen dawladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka ayagoo ku dhaxeeya ama sameynaya xal diblomaasiyadeed inkastoo wali safaaradaha labada dal ay yihiin kuwa furan haddana Soomaaliya iyo Imaaraadka khilaaf diblomaasiyadeed ayaa u dhaxeeya iyadoo ay taasi jirtana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku eedeeyay dawladda Kenya inay ajenda siyaasadeed ee ku lifaaqday dacwadda badda ee hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka waraysi Universal ayuu ku sheegay in arrintan ay tahay waxaan u cuntumin dadkii dawladda Soomaaliya dawlad goboleedka Jubbaland ayuu ku nuuxsaday inay doonayso inuu noqdo meel ay ka go'an maroojiso si ay u ogolaadaan wada hadal iyo qaab hoose oo lagu xaliyo kiiska taagan 2014 faragelinta maamulka Axmed Madoobe xayiraadda cirka iyo ciidamada ay xukuumadda u daabushay gobolka Gado ayuu ku qeexay arrin u fasaxayo dastuurka si gaar ah xuduudaha iyo socdaalka hogaamiyaha dalka oo sheegay in Itoobiya ay joojisay weeraritaanka madaxda maamul goboleedyada ayaa ku eedeeyay Kenya inay wali wado waxaana uu ku qaaday weerar afka waxaan kaloo doonaynaa inaan bedelno dhaqanaha Kenya haday fargeliso waa okay Kenya maxaa iyadu ka galay Jubbaland Kenya iyadu shaqo kuma lahan Jubbaland faragelina kuma sameyn karto arin badda baa inaga dhaxaysa arintaas meel kasta ay maraysaa sidii ay u sameyn lahayd sidii ay ugu qasban lahayd Jubbaland runtii anaga ma doonayn in Jubbaland ay u ekaato waxa runta loo isticmaalo dhibaatada Soomaaliya loo isticmaalo ma ogolaanayno cidii ka shaqeynaysa ama fududeynaya waxaan ogsoonnahay inuu yahay qof aan ka shaqeynayn danta Soomaaliya iyo carabka ku adkeeyay madaxweynuhu inkastoo carabka ku dhuftay inaysan awood u lahayn ilaalinta xuduudaha dalka wuxuu ku adkeystay inaysan ogoleen faragelin shisheeye isagoo raaciyay annaga ma faragelinayno mana aqbaleen in loo isticmaalo maamul goboleedyadeena oo aan ognahay qaarkood in dibadaha lagu soo dhisay oo igaal loo soo xilsaartay Kenya waxa Soomaaliya ka jooga ciidamo ka tirsan AMISOM askartaas oo boqolaal waxay badankood ku sugan yihiin Jubbooyinka Nairobi waxay sheegtay inay ku ilaalinayso danaheeda amniga inta lagu guda jiray wareysiga Farmaajo ayaa diiday in go'aanadiisa yihiin kaliya talisnimo waxaana meesha siyaasadaha ka soo galay aan rabo oo aan bedelno ayuu xusay inkastoo Mareykanka ugu dambeyntii uu madaxweynuhu u aqoonsaday Axmed Madoobe Farmaajo waxa uu ka dhawaajiyay mowqifkiisa dawladda uusan wali isbedelin isla markaana aysan aqoonsanayn maxkamadda ICJ oo hal jeer ka ogolaatay Kenya in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda ayaa la filayaa in dib ay u bilowdo bisha Juun ee sanadkan 2020 waxaana lagu sheegay fadhiga ugu dambeeya wasiirka xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed
xuseen oo ka jawaabaya hadalka madaxweynaha ayaa ku sifeeyay gardaro colaad ku dhex abuuraysa bulshada labada dal. Jubbaland iyo Kenya ayuu hoosta ka xariiqay inuu ka dhexeeyo xiriir saaxiibtinimo, darisnimo iyo mid wax wada qaybsi ah. Kenya waxay ka mid tahay wadamada ciidamada ku taageeray howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya AMISOM, keliyana waxay ka wada shaqeynaa ammaanka, ma jiraan wax kale ayuu ku dooday. wuxuu wasiirku kusoo gabagabeeyay hadalka haddii la rabay inaan dariskeena Kenya la coloono ma dhici doonto si kastaba ha loo soo dhigo, balse Kenya waxaa nagala dhexeeya soodin gaaraysa 800 kilomitir ayuu yidhi. dowladda federaalka ayaa markii ugu horeysay geesta kale waxay ka jawaabtay wararka sheegaya in la fududeeyay baxsashada wasiir Janan. dowladda federaalka ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadashay baxsashada wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. Maxamed Abuukar Islow Ducaale wasiirka amniga waxa uu sheegay inay aad kaga xun yihiin fakashada Janan, wuxuuna baxsaday 28 Janaayo. isagoo la hadlayay TV-ga Universal wasiirka ayaa daboolka ka qaaday in baaris ay ku socoto kiiska, walow uusan shaacin warar sheegaya inay jiraan askar loo xiray arrintaas. Master Islow ayaa meesha ka saaray in mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ay fududeeyeen baxsashada Janan. Jubbaland ayaa hore kaga dhawaajisay warkaas. dhanka kale wasiirku hadalkiisa sii wata waxa uu shaaciyay in dhawaan ay dhici doonto in saraakiil kale xabsiga loo taxaabo, kuwaas oo uu tilmaamay in arrinta Cabdirashiid Janan weli xiriir ay la leedahay. Maxamed Abuukar Islow Ducaale waxa uu tilmaamay in dowladda Kenya laga doonayo in farigelin aysan ku sameyn qadiyadda Soomaaliya, sidaa daraaddeed dambiile Cabdirashiid Janan laga doonayo inay u soo dhiibto dowladda dhexe. waxaana arrintaas uu sheegay inay tahay waxa ay ka doonayaan dowladda Kenya darisnimada labada dalna ilaaliso. Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa Cabdirashiid Janan hore waxa uu sheegay inuusan waxba ka ogeyn xarigiisa, balse lama oga sida hadda wasiir Islow uu ugu tilmaamayo Cabdirashiid Janan dambiile. madaxweyne Farmaajo amiirka Qatarna waxay ka wada hadleen xaaladda labada dal. sida ay daabacday jasiiradda Al-Sharq ee ka soo baxda dalka Qatar, waxaa wada hadal u dhexmaray amiirka dalkaas Sheekh Tamiim bin Hamad Al Thani iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. wada hadalka labada mas'uul ayaa ahaa mid dhanka teleefanka, waxaana si qoto dheer ay ugu wada hadleen xiriirka dowladaha Qatar iyo Soomaaliya sidii loo soo xoojin lahaa xilligan iyo arrimo kale oo ay wadaageen. xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa wanaagsan, waxaana xukuumadda Dooxa ay dhigeeda Muqdisho ugu deeqday mashaariic kala duwan ay ugu weyn yihiin dhismaha 2 wado oo magaalada Muqdisho ku xira Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe. bishii Juun sanadkii 2018 dowladaha Qatar iyo Soomaaliya waxay kala saxiixdeen heshiisyo kala duwan, waxaana ka mid ah taageeridda xukuumadda Dooxa ee adeegyada caafimaad ee Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa dhowr jeer tagay dalka Qatar, waxaana uu la kulmay amiirka dalkaas Sheekh Tamiim bin Hamad Al Thani, waxaana ay ka wada xaajoodeen xiriirka ka dhexeeya labada wadan. dowladda federaalka ayaa waxay go'aan dhexdhexaad ah ka qaadatay bishii Juun sanadkii 2017 go'aankii Qatar xiriirka ay ugu jareen dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn, Masar, Jordan iyo dalal kale kadib markii ay ku eedeeyeen inay taageertay kooxo loogu yeero argagixiso. sidoo kalena Qatar waa xukuumadda kali ee saameynta ku yeelatay xukuumadda madaxweyne Farmaajo. marka loo fiiriyo siyaasiyiin Qatar aad u taageersan siyaasadooda ayaa ka soo muuqday, sida taliyaha hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka NISA. wararka ka imaanaya gobolka Baay waxay sheegayaan in xalay saqdi dhexe waraaqado lagu daadiyay bartamaha magaalada Dinsoor ee gobolka Baay, kuwaas oo lagu raadinayo qof u dhashay Mareykanka kana tirsan Al-Shabaab. waraaqadaha lagu daadiyay magaalada Dinsoor waxaa ku qornaa magaca Jihaad Sarwan Mustafi, waxaana madaxiisa saaran lacag gaaraysa 5 milyan oo loo ballan qaaday ciddii xogtiisa keenta sida ku xusan waraaqaha in la siin doono. dadka deegaanka waxay soo sheegayaan in markii hurdada ka tooseen gudaha magaalada ay ku arkeen waraaqadahan ay u maleynayaan in xalay saqdi dhexe ay daadiyeen diyaarado nooca qumaatiga u kaca. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Dinsoor Abshir Macalin Yuusuf oo warbaahinta u waramay waxa uu sheegay in diyaarad jawi hoose ku socotay ay daadisay waraaq uu sheegay inaysan garanayn ninka ku sawiran. waxa uu sheegay in Dinsoor oo goob istiraatiiji ah ku taal ay tahay sababta kaliya waraaqadahan lagu daadiyay. dadka deegaanka ayuu sheegay in arrintan wax walwala aysan ku abuurin. diyaaradaha duuliyaha leh ee Mareykanka kana duula saldhigyada Mareykanka Balidogle ee Soomaaliya iyo Mandibay ee Kenya ayaa xilliga habeenkii ah guuxooda waxaa laga maqlaa deegaanada iyo degmooyinka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, ayagoo mararka qaarkood geysta duqeymo ka dhan ah Al-Shabaab. geesta kale gudoomiyaha ayaa shaki ku muujiyay in Sarwan Mustafi uu ku sugan yahay Dinsoor, balse waa uu diiday arrintaas inuu ka jawaabo uu sax xaqiijiyo, waxaana uu sheegay in kaliya dadka ay ka maqleen. saraakiisha nabadgelyada waxa uu sheegay in weli wax xog aysan la wadaagin. Jihaad Sarwan Mustafi waxa uu ku dhashay dalka Mareykanka, waxaana uu ka tirsan yahay Al-Shabaab. waxay dowladda Mareykanka bishii December ee la soo dhaafay shaacisay in madaxa Jihaad Sarwan ay ku doonayso 5 milyan oo dollarka Mareykanka. waxaa lagu eedeeyay inuu yahay sargaal muhiim u ah Al-Shabaab, waxaana uu yahay qofka Mareykanka ee ugu darajada sare ee gudaha Al-Shabaab. waxa uu ku dhashay Wisconsin, halka la yiraahdo waa 37 sano jir, kaasoo ay raadinayaan hay'adaha sirdoonka Mareykanka FBI-da iyo CIA-da. waxaa lagu eedeeyaa inuu ka dambeeyo qaraxyo badan oo Al-Shabaab ay ka geysteen geeska qaaradda Afrika, tusaale ahaan Kenya sida lagu xusay waraaqdan oo ay daadiyeen diyaaradaha.
jihaad sarun mustafi waa mid ka mid ah dadka ajaanibta ee aadka ugu dhow amiirada kooxda al-shabaab oo Soomaali ah. ugu dambeyntiina dowladda Masar waxay xaqiijisay in kiiskii ugu horeeyay cudurka coronavirus oo dilaaga laga helay dalkeeda. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka dowladda Masar Khalid Mugahed ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in qofka laga helay cudurku yahay nin ajnabi ah oo aan muujin wax astaamo halis ah. Bayaanka wasaaradda waxaa lagu sheegay in qofkaas la dhigay cisbitaal balse ma aysan cayimin qofka dhalashadiisa ama halkuu ka soo galay. kale dowladda China ayaa amartay in qof kasta ee ku soo laabanaya caasimadda dalkaas iskarantiilo muddo 14 maalmood ah ama uu wajihi doono ciqaab. arrintaas ayaa talaabadii ugu dambeysay ee lagu xakameynayo caabuqan cusub ee dilaaga ee coronavirus sida ku warantay warbaahinta dowladda. in ka badan 1500 oo qof ayaa u dhimatay caabuqaas laga soo bilaabo tan markii uu dilaacay magaalada Wuhan ee dalka China. wararka soo baxaya dalka Masar waxay noqonayaan warkan ka soo baxaya dalka Masar wuxuu noqonayaa kiiskii ugu horeeyay lagu helo Afrika marka laga soo tago dad lagu shakisan yahay cudurkan oo lagu qabtay wadamo ay kamid yihiin Itoobiya iyo Kenya oo dhaca bariga qaaradda Afrika. guud ahaan daawadayaal wanaagsan warkii xulashada nabadgelyo.